waan isku soo laabanay waan ogahay inaad ii xisteen sidoo kale anigu waa idin xisay sida adinkuba igu xistaan okay ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale haddaba caawa maxaan la soo fadhiistay halkan waxaan doonayaa inaan ka hadlo dadka akoonada qarxiya ama dadka akoonada iska guba sababaha ay u gubayaan haddii aan u sheego kow waxa waaye aqoontii suuqa oo aan la wada haysan haddii aqoontii la haystane ma la haysto experience-gii suuqa qofka gubaya akoonka sababta uu gubayo kow waxa ka mid ah haddii qofkaas ay SLB ay ka dhaadhacsaneed suuqan si degdeg ah ayaa lacag looga sameeyaa qofkaas waxaa hubanti ah suuqa inuusan xilli uusan u lahaynba xilliga uu soo fadhiistaba uu fursadda u raadiyo haddaba haddii aad tahay dadkaas markay suuqa soo fadhiistaan fursadda raadiya ogow waxaa ka mid tahay dadka akooniskooda qarxiya haddii ay tahay real haddii ay tahay fundedne intaba waxaad ka mid tahay dadka qarxiya okay qofka sidoo kale intood loo soo sheegay in suuqan si lacag looga sameeyo asagana daqiiqad ma ku qaadanayso inuu akoono badan uu qarxiyo iska jira marka haddii aad tahay ama haddii aad ka mid tahay dadkaas in suuqa aad dib isku xisaabisid markii aad gelaysidna aadan soo gelin in aad trade-kaas lacag ka samaysid ogow lacagta adiga aad samaynaysid waxaad khasaari kartaa in la eg lacagta adiga aad suuqa ka raadinaysid marka iska jir akoonkaaga riski ha gelinin riskina ha u bareerin waxaan aragnay dad badan oo trader ah phase 1kii baasi phase 2kii baasi oo labadii phase markay baasiyeen sidoo kale intoodna aanan weli processkii raacin oo withdrawgii ay rabeen inay sameeyaan ayaa waxaa lagu ciqaabayaa akoonkii ayay qarka waxay u saaran yihiin in ay ka taqalusaan ama ay gubaanba waa hal minus uu akoonkii geliyey ayuu wuxuu u gubi doonaa akoonkii oo dhanba marka iska jir haddii aad ka mid tahay dadka you have to respect the process isku day marka adiga inaad isxisaabisid oo wixii kaa qaldan aad meel ku ururisid daatadaas markaa ururisid kadib waxaa ku soo bixi doontaa waxyaabihii aad ku qaldaneed sidoo kale intoodna waxaad dib u heli doontaa ama waxaad adiga ayaa isheli doona aynu u imaano marka qofka profitable-ka ee suuqan raba inuu sii dhex joogo kaasi waxa uu sameeyaa process aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin in uu research uu ku sameeyo tradeska uu qaadanayo sidoo kale intoodna qofkaas suuqa markuu soo fadhiisto ma raadiyo entry laakiin waxa uu la socdaa ama uu akhriyaa chartiska suuqa meelaha laga soo celiyay waxaa jirta oraah yar oo dhahaysa if you wanted to see the future look at the past taasoo macnaheedu ay tahay haddii aad rabtid mustaqbalka wixii ka dhici kara suuqan aad ogaanaysid waxaa qasab kuwa inaad ogaatid daatadii hore ee aad soo dhaaftay marka isku day marka inaad dib ugu laabatid suuqu week hore muxuu sameeyey weekii bishii hore muxuu sameeyey maalintii hore muxuu sameeyey you have to know what you want to do inaad intaas aad ogaatid ayaa muhiim ah haddii aadan intaas aadan ogaane ogow waxaa ku jirta beerta waayo wax daata ah ma xukumi kartid emotionkaaga ayaa ku hogaamin doona intii uu emotionkaaga ku hogaamin lahaa waxaa ku wanaagsan in adiga naftaada aad controlatid oo aad baratid sida loo controlo insha Allah muuqaalkan hadduu idin anfacay la galay